ciidamada maamulka Jubbaland oo howlgallo ku qaaday deegaanka Cabdidoore Haadweyne iyo deegaano kale oo hoos yimaada deegaanadaasi ayaa waxa ay ku toogteen ku dhawaad ilaa iyo 4 askari oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxaana saraakiishii hogaaminaysay ciidamadaasi ay u sheegeen warbaahinta in guud ahaan ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Cabdidoore iyo waliba Haadweyne oo hore ay ugu sugnaayeen ururka Al-Shabaab. Atriyaha guud ee ciidamada deegaanada galbeedka ee magaalada Kismaayo mudane Gaboowe Xasan Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka warbixinayaa howlgalladii ay ku qaadeen deegaanka Cabdidoore iyo waliba waxyaabihii ka soo baxay howlgalladaasi. meeshaan hadda kala hadlayo waxaa la dhahaa Haadweyne galbeedkeedaan ku sugnahay meeshaas ay ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland oo ay ku tageen saaka baas ay baxsanayeen ciidamada cadowga oo ku soo faalalay saldhigyo aan ku leenahay annagu galbeedka meeshan kala hadlaya cadowgaas oo aan waxba geysanin laakiin isagii khasaaro badan loo geystay waxay ku gaadheen saaka 12 saac ama 12 saacada subaxnimo xerada ku taala Karinuusle ilaa Beerxaani baa la eriyay si marba laba looga reebayay midba marba hal looga reebayay hadda waxaan ku sugnahay galbeedka meesha la yiraahdo Haadweyne waxaan ka reebnay afartaan ka dilay meydkoodii qaar Kismaayo la keenayo oo la soo wado hadda iyagana aan dhintay hal dhumay baan ka yeelay waxaa ka mid ah Cabdidoore oo aniga tagay aniga kula hadlaya waxaa ka mid ah Haadweyne waxaa ka mid ah meel saldhiga oo iyagu ku lahaayeen koonfurta koonfurta Cabdidoore oo khamra la yiraahdo waxay uga duwan yihiin ciidamada hadda dhulka aan ku sheegay meena joogi jirin laakiin saacada aan ku sheegay way ku sugan yihiin sidaa darteed baad ku ogaanaysaa ciidamada kaydka ee Kismaayo xitaa qaybo ka mid ah soo gaaray goobaha iyaga waxaa yimid taliyihii ciidamada saraakiisha u yimid qojaar baa jooga saraakiil kale joogta waa lagu dhayahay meesha wax maqan ma jiro ma ahan markii ugu horeysay howlgalle ceenkan oo kale ay qaadaan ciidamada maamulka Jubbaland kuwaas oo ay ku baaqsanayaan ururka Al-Shabaab. Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane, Home Cable TV, magaalada Kismaayo.